booliiska oo lala xisaabtamaya ujeedadooda waa kuwa iyagaana gabadha dhaawacay boolis maaha waa niman aadan soo qortay xarunta ku meel gaarka ah ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa la geeyay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan ciidanka booliiska si loo xakameeyo xildhibaanada diidan hab maamulka guddoonka oo ku maamulaya ajandaha miiska yaala inkasta oo warbaahinta maanta laga joojiyay haddana waxaa tabinaya muuqaalada xildhibaanada goobta ku sugan iyagoo telefoonadooda gacanta ku soo duubaya muuqaalada iyo jawiga xarunta ka jira is-hortaagga lagu sameeyay maanta qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa waxa ay keentay in xildhibaanada qaybo badan oo ka mid ah ay saakaba xilli hore ay tagaan xarunta baarlamaanka si uusan u furmin ajandaha wax ka beddelka dastuurka ee maagan yihiin guddoonka iyo xildhibaanada kale ee taabacsan xildhibaanada la ganaaxay ayaa kulanka maanta waxa ay qudhoodu sheegeen inay tagayaan xarunta iyada oo dooda ay uga dhiiban doonaan ama ay ka dhiiban doonaan ajandaha yaala ee la xiriira cutubka 5 ilaa cutubka 9 ee dastuurka ku meel gaarka ah inkastoo la ogeyn sida ay ku gaari karaan maadaama ay ganaax ka yihiin ciidamada booliiska ee xarunta golaha shacabka gudaha ugu jira ayaa isku jaahwareeriyay goob fadhiga guddoonka iyo waliba habdhowrka baarlamaanka ujeedkuna waxay ahayd inay kala dhex galaan oo ay feejignaan u ilaaliyaan guddoonka mid ka mid ah muuqaalada laga soo duubay goobtan ayaa waxaa la arkayaa xildhibaanada oo xildhibaanada qaar ka mid ah oo sheegaya in dhaawac uu soo gaaray xildhibaan Cadar iyadoo oo ku eedeeyay dhaawacaasi inay keeneen ciidamada booliiska waa sida ay hadalka u dhigeen